waxaana wanaagsan daawadayaal mar kale weli waxaad daawanaysaan telefishinka STN waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka hogaanka STN xubintiisii wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen ayaynu kasoo gudubnay waxaynu gudbaynaa xubinta xaaladda dalka aan alaabo ku casuno dad markaasi khibrad dheer u leh mawduucyada miiska inoo saaran ayna ka doodno inagoo sidoo kalena fursad u siino dadkaasi in marka ay iyaguna soo bandhigaan qorsheyahooda siyaasadeed haday noqoto dhanka waxbarashada dhanka tacliinta dhanka biyaha iyo sidoo kale dhanka amniga waxaa marti inoogu ah maanta barnaamijka mid ka mid ah musharaxiinta u sharaxan xilka MP-ga ee deegaanka Lagdheera Cabdiqani Ibrahim Saytuun ayaa barnaamijka marti inoogu ah oo musharax u sharaxan xilkaasi kana mid ah dabcan dadka ugu cadcad Cabdiqani aynu ka wareysan doonaa waxyaabo badan oo markaasi barnaamijka inoogu diyaar ah Cabdiqani Ibrahim Saytuun aad u mahadsan tahay waqtigaadna siisay kusoo dhaw telefishinka STN mahadsanid Maxamed Wadawah waa tahay Cabdiqani aad u mahadsan tahay waqtigaaga mar kale haddii aan ku bilaawno bal daawadayaasheena haddaad sawir ka siisid waa kuma Cabdiqani Saytuun xaguu ku dhashay waxbarasho heerkee leeg ayuu leeyahay intuu kasoo shaqeeyay waad ku mahadsan tahay inaad igu casuumta showga Cabdiqani Ibrahim Saytuun reer Gaarisa nahay Gaarisa County ayaan ku dhashay khaasatan Lagdheera constituency heer waxbarasho waxaan ku bilaabay Lagdheera wixii jaamacadii ka sareeyo degree masters waxaan ku sameeyay xaggaas Europe ayaan ku soo waxbartay waa gartay marka dhanka shaqada Cabdiqani Saytuun intuu ka soo shaqeeyay shaqooyin badan baan ka soo shaqeeyay dalka iyo dibadaba halka waan ka shaqeeyay qurbahan waan ka soo shaqeeyay badan baan ka soo shaqeeyay more of management waxyaabaha hadda maamulka sida management oo kale ayaan inta badan ka soo shaqeynay waa tahay Cabdiqani aad u mahadsan tahay mar kale Cabdiqani dalka wuxuu ku jiraa xaalad loogu diyaar garoobayo doorasho xaalad siyaasadeed ku jira xaaladda siyaasadeed ayaa waxa ay dhalisay in lagu kala aragti dubnaado dhanka fikradda dhanka taageerada loo muujinayo dadka siyaasiyiinta iyo sidoo kale dhanka sidoo kale dadweynaha oo cod bixinaya oo iyaguna sidoo kale ku kala qaybsamay waxa hadda jira isbahaysiyo la magac baxay Azimio la Umoja iyo Kenya Kwanza waxaana ku jira rag hardan adag oo ka dhaxeeyo xilka madaxtinimo labada nin ee sida aadka ah loogu saadaalinayo bal dhanka Kenya Kwanza aan ku bilaabaynaa Cabdiqani William Samoei Ruto iyo waxaan ka hadlaynaa saameynta uu ku leeyahay gobolka Waqooyi Bari focuskeena wuxuu saarnaan doonaa inta badan gobolka Waqooyi Bari William Samoei Ruto madaxweyne ku xigeen ayuu ahaa 10 sano u dambeysay adoo kulay nin siyaasadda ku soo jira ahayd bal waxa sawir naga siisaa William Samoei Ruto door intee leeg ayuu ka qaatay horumarinta deegaanada haday noqoto dhanka waxbarashada haday noqoto dhanka agriculture-ka ama beeraha door intee leeg ayuu ka qaatay intuu madaxweyne ku xigeenka runtii horta waxa weeyaan waad ogtahay siyaasad kulul ayaa hadda lagu jira climax ay maraysaa meelihii u dambeeyeen wasaad sheegtay isbahaysi fara badan ayaa la sameeyay labada u waaweyn hadda waxay noqdeen Kenya Kwanza oo hogaaminayo madaxweyne ku xigeenka wadanka William Samoei Ruto iyo Azimio oo hogaaminayo former prime minister hore Raila Odinga runtii haddii aad ka hadashay waxqabad 10 sano ayuu ahaa madaxweyne ku xigeen William Samoei Ruto kulli waxyaabo badan oo kuma sheeganay way jiraan aan ognahay inay dawladdu wax ka qabatay dawladda sanayay ahayd madaxweyne ku xigeen ayuu ahaa kulli maamulkii waxyaabo badan oo gobolka Waqooyi Bari laga qabtay way jirtay waxyaabo badan oo sidoo kale laga gaabeeyay way jirtaa marka saasad ogaanaysa way marka waxyaabaha ugu waaweyn oo maanta hadii la isdhaho dadka reer Northern Ruto waxay ku dooranayaan wax qabad oo kale oo istaan qaasatan maxaa maanta soo oran kartaa uu ka qabtay Ruto adiga Cabdiqani ahaan wallahi runtii waxyaabo badan oo hadda jidad fara badan way qabteen oo ilaa intaasoo 100 kilomitir ah hadda meeshan aan ka taagan kale Nuno Garis marka ka baxday ilaa Modogashi jidba gaari laamida ugu weyn waay taasoo waxay sababtay mataqaana in dhaqaalihii meeshii uu kor u soo yarkaco baabuurtii yaryar la isticmaali karo
waxaa kaloo jirta jid kale oo kasoo socda dhankan Isiolo hadda Mudogaasha soo maraayo Lagdheera dhex maraayo ilaa Mandera u socdo sidoo kale koronto national gridka ilaa hadda Banaani buu soo gaaray Garbatula ilaa Northeastern meelaha u dambeeya soo marhaya runtii waxyaabo badan oo la taaban karo oo sida hadda tacliinta kale waxyaabo badan baa mataqaanaa ay ku mana sheeganayaan dawladdan hadda ku jirto oo William Samoei Ruto dadka hogaaminaya uu ka mid yahay dhankan hadda Garissa County haddaa dhahdo khaasatan Northeastern markaa dhahdo Garissa County districtyaal fara badan ayaan helnay runtii hadda Liboi, Dadaab, Mudogaashe way ka arooreysa I mean Shanta Abaq sidoo kale Banaaney oo la soo gazette garay way jirtay marka waxyaabo badan oo laga gaabiyay sidoo kalena way jirtaa waxyaabo badan oo la qabtana way jirtaa waxay Cabdiqani aad u mahadsan tahay Kenya Kwanza waxaa lagu aasaasay hanaan oo madaxweyne ku-xigeenka dalka uga hor imaaday handshake ama heshiis ay sameeyeen Raila Odinga iyo madaxweynaha dalka William Samoei Ruto madaxweynaha dalka wuxuu dhisay muddo 2 taam ah oo u dhigan 10 sano ayuu dhisayay madaxweynaha dalka shalayna uu hadlay dabcan siyaasadda madaxweynaha ku-xigeenka ayuu inta badan ka hadlaa wuxuuna sheegay in isaga uu dabcan waxa uu sheegay loo baahnaa inuu soo qabto waqtigii uu madaxweyne ku-xigeenka ahaa malis oran kara Uhuru Kenyatta doorkiisii ayuu gabay ninkii 10 sano asaga soo garab istaagnaa ayuu dhinaca uga weecday inkastoo ay jiraan sababa runtii horta wixii waa iska siyaasad weeyaan siyaasadna maalin walba waji hor lay leedahay sidaan ognahay madaxweyne ku-xigeen nin 10 sano ah kulley door weyn ayuu dawladda ka qaatay hadalka hadda sidaa u dhigta aniga si ka duwan ayaan u yara dhigaya handshake in badan waxaa loo arkaa in lagu faa'iiday ama maslaxa badan u dhali waa loo qaybsan yahay fikirkaas asaga ah in badan waxay u arkaan in dad shakhsi ah lagu daneynayo runtii waxyaabaha u badan oo hadda laga cawanayo ayaa waxay tahay handshake in dadkii oo dhan lagala tashan arrin dadka lagala tashtay aysa ahayn labada dhinacba laba xisbi bay ahayd mid waxay ahayd Jubilee coalition bay ahayd tan kalena NASA coalition bay ahayd kisto waxaa nasiib darro ka dhacday ama dacayadeenta hadda socoto in labada dhinacba dadkii aan lagala tashanin taasoo sabab u noqotay in madaxweyne ku-xigeenkii uu fallaaga arrinta ka noqdo waayo nin arrintii lagala tashta ma uusa ahayn in qolyihii kale oo NASA hadda waxaa NASA principles waxaa ka mid ahaa ninkan Ford Kenya hogaaminayo Wetangula Moses Wetangula ANC hogaamiyaha ANC oo Musalia Mudavadi runtii waxaad dareemi karaysaa handshake loo wada ilaa ama handshake laba xisbi dhex maray ama handshake waddanka dhanba mataqaanaa lagala tashtay weli kama hadlin faa'iidadiisa iyo khasaaradiisa ah kaliya waxaan ka hadlaa sidii u dhacay oo keentay madaxweyne ku-xigeenkii inuu fallaaga noqdo keligiisna keli maaha principleska kalena ee fallaaga noqdaan waa tahay mawduuceena handshake ma saarno faa'iidadiisa nooma muhiim ah waqtigan waa tahay bal dhanka kale ee Azimio haddii aan u weecano saameyn intee leeg ayuu Raila ku dhex leeyahay bulshada Soomaalida ra'iisul wasaare ayuu soo noqday waynu ognahay dawladdii waqtigii devolutionkii isagana saameyn intee leeg ayuu ku leeyahay maxaana lagu xasuusan karaa runtii horta duqa Raila inta badan waana ka hadlay meelo badan waan uga hadlay waxyaabo badan oo uu qabtay way jirta ama asaga uu sabab u ahaa multipartyismkan xornimadan inta badan hadda la muujinayo dadka asaga inta badan ku mana sheegta ama loo arkay inuu dadka usoo dagaalo oo ka mid ahaa laakiin se tii u dambeysay handshake u dambeysay iyo Azimio siday ku dhalatay arrin loo boga ma ahin in badan baa waxay u aragtay waagi hore nin u taagan Raila Odinga nin u taagan inuu ahaa shacabka iyo waddanka wixii dan u ah markii dambe oo handshakean uu dhacay waxaa dadkii meesha ama ka cadaatay ama loo arkay Raila Odinga inuu yahay qof hadda shakhsi ah oo matiisa shakhsiga fulinhayo gacantana la soo qabtay madaxweynaha waddanka uu gacanta soo qabtay in laga caawiyo in kursiga hal mar uu ku fariisto waxaa kale oo arrinta caddayn karaysaa raggii gacantiisa midig ah sida Junet Maxamed oo kale
dadkii ka hadlayo ah warni af Soomaali dhaar ku hadlay war ninkan 70 jirka bal hal mar aan isdhaafin oo kan wax noocaas oo kale ah marka waxaan dhihi karnaa wixii uu helayo ama kaalmada ama sana taageerada hadda uu helayo waa iska sympathy vote ma aha qof qadiyadiisii iyo adkaantii hore ee Raila Odinga lagu yaqaanay oo uu arkay inuu dadka wadanka u daneynayo dawladaha uu ka horjeedi jiray inaysa ahayn laakiin hadda loo arkayo nin kali ah xil raadinayo ama xil qaybsi ku jiro oo gacanta la soo qabtay hadda taas loo arkaa Raila Odinga waayahay cabdiqani intaan ka bixin siyaasadan guud waxaa kaloo jira saddex maanta labada sinin oo dabcan asagana tartan adag inuu ku jiro isleh asagana dad badan oo taageera watana jira ninka lagu magacaabo George Wajackoya isagana xilka madaxweynaha ayuu tartamaya muddooyinka u dambeeyana waa ogtahay hadalhayn badan ayuu ka dhaliyay baraha bulshada iyo gudaha dalkaba bal Wajackoya tiis bal wax yar inooga taabo bal Wajackoya waa qof musharaxnimadiisan dadka badan waxay dhahaan wax serious mise inuu ka dhaweeyo ma aha bal aduu say kula tahay wallahi runtii analyst horta ma ihi siyaasi baan ahay laakiin political analyst ma ihi ninka asaga ah kulli waa nin xishmadiisa wato waa nin soo hawooday waa nin isku arkay inuu isbedel asaga sida la quman u wado bariyahan dambana baraha bulshada iyo wixii ka socda waa dareemi kartaa Maxamed in badan baa looga hadlaa arrinta iyada ah oo la leeyahay hadda nin qabiil iyo qoys qaada ayuu noqday wuxuuna hadda aad iyo aad mataqaanaa loogu tirinhayaa inuu Raila asagan uu dhinac ka taageerayo maadaama isku meel ay ka yimaadeen taas xagga yar jeedaa leeyahay waag hore si fiican baa loo bumbuuniyay laakiin hadda kisto graafkiisa hoos inuu dhacal arkaya oo ninku beeray mowqifkiisa iyo hadafka uu lahaan uu ka yara leexday waxyaaba dadka inta badan ninkaas ay qosolka leh waxa kamid ah qorshayaashiisa siyaasadeed aan ka socono marka aan u gudubno gobolka waqooyi bari Garissa aan u gudbaynaa adiga meesha ka soo jeedo bal marka hore si warguud inaga sii Garissa sidee ay siyaasaddu u socotaa sidee ay doorashada isku diyaariyay waxaan ognahay bulshada reer Garissa iyo Soomaalida dhammaan gobolka waqooyi degan in lagu kala qaybsamo waqtiga siyaasadda fikir ahaan iyo dadka la taageerayaba bal si warguud inaga sii adigoo soo koobaya sidee ayaa la iskaga diyaariyay doorashada dhacayso 9 bisha August oo ay ka dhantahay 35 maalmood oo kaliya runtii horta Maxamed siyaasadan hadda seasonkan ama xilligan waxaad moodaa tii hore inay ka duwan tahay dadkii inay aad wixii u fahmayaan devolutionka in lala qabsanayo isbedel badan baan hadda aan meeshii aan uga jeednaa waxaad ogtahay anaga dhulkeena hadda Garissa County way idisay wax walba Soomaalida oo dhan ba hadii guud la dhaho based on clanism iyo tribal lines macnaha waxaan ka wadaa qabiil iyo qoys buu ku saladeysan yahay hadda markaad hadda Garissa County aad u fiirisid dadka musharaxiinta waaweyn oo kale hadda waxaad dareemi kartaa dadka wato isku dhex jir inay yihiin qoyskii wax lagu dooran jiray meesha uu ka baxay dadkii kastoo ay aad moodaa dad matured inay noqdeen oo arrintii aad iyo aad u fiirinhayo yaa wax tari karaa yaa developmentkiisa la eegi karaa waxqabadkii qofkii in lagu qiimeynhayo dadkii hore wax looga soo bartay hadda miisaaniyad isbedel weyn baa horta meesha ka socdaa qaasatan haddii aad gobol haddaa i weydiis hadda Lagdera batri somaha meesha aan ka taaganahay horta waa unique place waa meel ka yara duwan constituency-ga kale in badan waan ka hadlaa dadka waxay isku mid baa loo yar maleeyaa waxay ka kooban tahay taqriiban 6800 square kilometer ah 6800 square kilometers mar badan waan ka yar hadlaa arrinta iyada ah waxay u dhigmataa hadda Kiambu Kirinyaga iyo Nyeri oo isku dare way ka weyn tahay Lagdera baa ka weyn hadii si loo eego waa gartay waxay sidaa tahay waxay meelaha kale uga duwan tahay waxaa hadda daris la ah Balambala dhankana Dadaab intana Wajir South intana waa Isiolo County waxaad moodaa Lagdera inay ka duwan tahay intaas oo meel ah sababtay tahay waa biyo la'aan waan ka hadli doonaa Cabdulqani arrimahaas waan u soo socdaa okay su'aalo muhiim ah igu jira meelahaasi waan ka hadli doonaa bal adu siyaasadaadan u imaado marka Cabdulqani Ibrahim Saytuun
dad badan baa isweydiin karaa hadda ku daawanaya maxaa cabdulqani ku dhaliyey inuu isku soo sharaxo waqtigan kursiga mp-ga lagdheera runtii waa su-aalaha aan aada iyo aada u jeclaa in horta la weydiiyo musharaxiinta oo dhan ba inta badan idinka xataa dadkan mediaha inta badan waad ka gaabisaan qofka marka koowaad horta sn waxaa ku dhaliyey inuu soo tartamo ama sane siyaasadaba ku dhaliy in la weydiiyo waa arrin aada muhiim u ah waayo waxaan ognahay dadka qaar intaan tayada goola gelin dadka qaar ba waxay usoo tartamaan inay qof kale lugaha qabtaan dadka qaar waxay usoo tartamaan inay dhacaan oo jaga laga siiyo meelo kale ama qoysnimo wax loogu doono dadka qaar waxay usoo tartamaan inay iska soo caanbaxaan keli ah si ay meelo kale wax uga doontaan marka waxaa yar tartankii dadka soo tartamahayo inay waxay sheegan hayaan ay ka run sheegaan ama ay usoo tartamahayaan haddii tayda ay weydiisay weliba anigoo waddanka ka maqan in badan oo qurbaha iyo meelaha ka shaqeynayay u badnaa ayaa waxaan la joogi waayay baahida dadkii tolkii haysato dadkii lasoo doortay siday oga gaabiyeen adeegii la rabay inay dad tolkii u qabtaan aniga khaasatan waxaan istusay inaan hoggaan aan qaban karo isku xiraayo dowladdii iyo shacabkii lagdheera dadka waxaan ku dhihi jiray war aniga qarash ma rabo lacag ma rabo shaqana ma rabo keliya kaarkan yarka oo meesha aad ku ridaysaan kaar waa ilaa mogta election cardka war kaarkan yarka ood baahida aad sheeganaysaan ood ku baahantihin kulley waad ku qatantihiin bal safartan ani igu daya waxaan isku daya inaan blueprintkayga sharxo aadna aan uga hadlo dadkii aan ka dhaadhic horta sababtaan usoo istaagay dadka laakiin sibay u barteen qoys baa wax laisku doortaa nin baa beri soo kufay nin baa kan haysataa waxyaaba noocaas dadka nin jeclaysi keliya marka hadhowna waa la shallaaya inta badan dadka way shallaayaan oo waxay dhahan war hebel saana maan mudan shaqadii buu qaban qofka shaqada inaa interview ka qaadaa la rabaa dhibabka adiga ku haysta maanta dalagdheera waa biyo la-aan qofkan biyo maxaa u qorshaysan qorshaha qofkan uu wato adiga qof qorshe kaa dhaadhici kara ma yahay qorshe waxgale maaha qorshe cirkaan roob ka keena inaad iska dhegaysata maaha colaad iyo border dispute iyo howlo badan baa iska jirta oo iyada qaas oo lagdheera qaas u ah war maxaa adi qofkan oo qorshaysan marka nasiib daro dadkan waa dad fiican siyaabo badan ay dadka ku doortaan laakiin tooday hilmaamaan so ani priority number one waxaa ii ahaa mar walbo dadkan inaan civic education siiyo war siday ku bartaan horta xuquuqdooda siday ku baran karaan war dadkan horta qofka markuu barto horta wuxuu xuquuq ku leeyahay ninkan mp-ga dooranaysa maxaa qasab maxaad ku leedahay oo adiga mataqaana kaala jira kadib inaad oratay authoritygiisa muxuu ku keeni karaa kartidiisa awoodiisa jagada uu hayo statuska uu hayo muxuu ku keeni karaa inaad baritid kadib baa waxaa la heli karaa qofki inuu doorto qaabka wax doorana wax ka bedelo marka aniga haddaa is-su-aashay waxyaabaha isoo kiciyay dadkeen horta civic education inaan baro arrintan biyaha iyo dhibabkan faraha badan oo laga gaabiyey qorshe fiican oo hufan oo noogu talagal inaan ka dhaadhiciyo anigoo cadaalad ugu shaqeynhayo hoggaankii halaabay oo dowladda u dhexeeyey iyo shacabka inaan wax ka qaban karo waayahay waxaan filayaa inay dad badan fahmeen aadaa ugu mahadsan tahay sidaa iiga jawaabtay su-aashaasi waayahay marka lagdheeraan u gelaynaa marka dhibaatooyinka ka jiro aada bay u badan yihiin cawashada dadka way soo yeertaa lagdheera bismaa meelo badanay ka yeertaa bal hadda lagdheera ayay marka focuskeena saarmaya arrimaha biyaha dhowr jeer hadda intaa hadlaysa carabka ku dhufatay biyo la-aan ka jirta lagdheera intaan horta u gelin waxa biyo la-aanta arrimahaas oo su-aalo badan dabcan aan kaa weydiin doono bal biyo la-aanta inta badan maxaa sababa ma waxaa sababa dams iyo waxaasoo aan la qodin ma waxaa sababa meesha oo webiga ka fog ma waxaa sababa gaabis ka imaaday dhanka maamulka bal maxaa sababa cabdiqani zaytuni ahaanaday runtii horta xilliga hadda aan ku jirna 21st century waaye adduunkii waa la hormaray xilli hadda maanta biyo laga cawan lahaa nasiib daro ma jirto haddii aad iweydiiso maxaa biyo la-aanta ka dhigay waxaan u arkay arrin laga gaabi inay tahay isku dayid way jirtay laakiin isku dayid xal ama miro dhal keenta ma aysa ahayn lagdheera waa saan kuu sheegay taqriiban waa 6,800 square kilometers in ka badan
nuskeeda waa biyo la-aan ilaa maalintii xorriyadda la qaato waad ogtahay marka waxaa nasiib darra ah meesha ayada in laga gaabiyey haddii aad i weydiisa maxaa sabab u ah sababta keliya waxaa waaye dadkii madaxdii loo doortay hadday national government tahay hadday county government tahayba arrin laga gaabiyey inay taan u arkayo in laga gaabiyey waa fikirkaaga aad waxaad kalood ku dartay runtii webiga miyaa ka fog webiga uu ka fog yahay ba it's not an issue webiga hadduu ka fog biyaha waa laga keeni karaa okay waxaan rabay waxaas oo fikir ahaantaada waana ii sheegtay aad umahadsan tahay waay marka biyo la-aantan laba siyaabood ay ka dhashaan inta badan waxaa sababa abaar daba dheeraat oo kale oo gobolka waqooyi bari dadku waa xoolo dhaqata intooda badan lagdheera hadda almost everyone oo ku nool waa xoolo dhaqata abaar oo daba dheeraat oo kale waa ogtahay abaartii sanadkan dalka qabsatay guud ahaan caalamka xoola dadkii xoolo dhaqatadii wixii inuu ka dhameeyey marka bal adigu qorshahaaga u imaado maxaa ku qorshe ah in meeshaas ama tallaabooyin inaad qaado abaaraha waa wax natural calamity ah sanad walba soo noqdo jiro tallaabooyinka ugu talagashay inaad uga hortagto abaaraha maxaa ka mid ah runtii abaaraha biyo la-aantan ka yar horumarinaya biyo la-aanta kolley waxay sii ziyaadisaa saameynta abaarta yeelanayso hadda lagdheera oo kale waa biyo la-aan dhibka u weyn oo haystana waa biyo la-aan haddaan dib kuuga celiyo waa constituencyga keliya oo 100% ku rely gareenhay ama ku nool xoola dhaqaalaheeda ku saladaysan yahay dhihi raba dhaqaalaha lagdheera wuxuu ku saladaysan yahay xoolahaas ku saladaysan 100% hal beer ma qabno hataa hal xabo hal qof oo beer meesha kule ma jirto so wixii kaliya oo dhaqaalihii lagdheera maanta ku saladaysan waa xoolaha iyaga biyo la-aanta waxaan ognahay siyaabo badan oo hadda biyihii loo heli karo waad sheegto the dams way jiraan lakin damska waxay ku xiran tahay inuu roob da'o soo maha so waxa 100% mataqaanaa lagu mataqaanaa lagu xisaabtami kara maaha hadduu roob da'o la helaa marmar inta badan roobku ilduufa sida rabana roobka looma helo waxaa la yeeli karaa biyaha in meelo badan laga soo jiido waxaa la yeeli karaa water tracking in la sameeyo oo booyada dadka ay u adeegaan nasiib darro hadda booyada way adeegaan laakiin booyada dad shacab uu leeyahay oo mataqaanaa lacag dadka laga qaato waay dawladda booyad lagama hayo xabadda waa meelaha lagu sheegay laakiin dad shaksi u adeegto marka haddii aad isu-aasho qaabkeed arrimaha aad wax oga qaban lahayd qorshe fiican oo biyaha ayaan hayaa kolley ma aqaana su-aasha hadda mina ku dari doonto inaad kaaga dhan tahay qorshe fiican oo hufan oo biyaha si long term ah iyo si short term ah tu dhiig joojin ah haddii aan arrinkan ku guuleysto aan wax ka qaban karo iyo tu baaraandeg badan u baahan waan ii qorsheysan tahay arrinta abaartaad i weydiisay abaarta kolley waad garanaysaa saameynta inta u badan waxay ku leedahay dadka xoola dhaqatada lagdheera waxaan kuu sheegay 99% dadka degan inay xoola dhaqata yihiin ama 100% baan ku dhaho dhaqaalaheedan uu ku salaysan yahay xoolahaas iyada ah marka abaarta meelaha koowaad oo saameynta weyn ay ku yeelatay abaarta hadda lasoo dhaafay meelahaas ayay ahayd xoolo badan ay ku dhamaadeen dad badan xataa gaajo mataqaana ay ku sigteen inay u dhintaan marka abaarta haddii aad i weydiisa aniga waxaa iga qorsheysan dadkeeni xoolo si loo dhaqdo keliya barteen in dadkii mataqaanaa laga bedelo fikirka xoolo dhaqashadii fikir kale oo ay beero ku abuuran karaan ama ku tabcan karaan lagu beero diversification ayaa la dhahaa diversificationkaas marka waxaa waye dadka inay xoolo dhaqato beeraley ay noqon karaan faa'iidada ay beerta kale leedahay tan xoolaha markii laga saaro in la tuso arrintaasna garab qabad ayay u baahan tahay dawli ah dadkaas ayaga dad ayaga iskaga fikiri kara maanta inay dhul faqfaqaan oo ay wax beeraan maaha waa dad u baahan in la garab qabto waa dad transition periodka macnaha intaas ay ka baranayaan shaqadii ama intifaaceeda ay ka arkayaan u baahan in lala garab saago insha allahu tacala haddaa i su-aashay arrintan iyo xilkan haddii aan ku guuleysto waxyaabaha aan doonaya culeyska inaan saaro dadkeena inay noqdaan xoola dhaqata beeraley inay noqdaan insha allahu tacaala qorshe fiicanna arrintaa way iga diyaarsantay qorshahaas intaa maan arrimaha biyaha ku jirnaa
waxaa ii sheegtay inuu qorshe fiican kaaga diyaarsan yahay mid short term ah iyo mid long term ah saa ii sheegtay marka inoo faahfaahay midka short term kada nooga bilaabay runtii arrinkan haddii aan ku guuleysto insha allahu tacaala priority number one horta biyaha yani blueprintkayga waxa koowaad oon mataqaanaa doonaya inaan ka shaqeeyo waa arrinka biyaha okay biyaha biyo la-aanta dhib weyn ayay nagu haysaa dhaqaalo badan jirganka hadda Mudoogaashe waa sub county headquartergeena waay magaalo madaxa sub county Mudoogaashe waay abaarta dudumas jirganka biyo 100 shilin 60 shilin ayaa lagu gadanaya waa nasiib darro dadka qaar waxay ku dhahan waan gabagabaysanaa marka taas awgeed ayaa waxay ii noqotay aniga priority number one inaan biyaha saaro waay biyaha saan ognahay horumar ka horeeya ma jiro ama horumar la qaban karo ma jiro runtii in any development ladder macnaha jaraanjarada horumarka markaad ka hadlaysid tilaabada koowaad waxaa weeyaan waa biyaha soo ma adoo biyaha dhibkooda xalinin iskooladii bay affect garaynaysaa canuga hadduuba ooman yahay ama uu saaka soo qabaysan ama uu soo diyaar garooyo nadaafadiisii ay si tahay waxaa iska adkaanaysaa fikirkiisa 100% inuu kalaaska ku jiro soo maha sidoo kale meel walba haddaad eegtid biyihii biyo la-aanta dhibkeeda way saameysay marka aniga haddii arrinkan aan ku guuleysto insha allahu tacaala waxay dhahaan madaxda lasoo doortay water is devolved waxay dhahaan biyaha waxaa micnaha maamulka dowlad goboleedka ayaa lagu celiyay waan ognahay laakiin waa certain percentage ani waxaan aaminsanahay 20% keli inay mataqaanaa ay mas-uuliyadda leeyihiin haddii arrinkan aan ku guuleysto insha allahu tacaala waxaa ii dhiig joojin ah dadkii inaan culeyskii biyaha ay ku hayeen aan ka qaado oo sideen oga qaadahayo insha allahu tacaala waxaan doonayaa booyadaha inaan ziyaadiyo booyadaha inaan ziyaadiyo water trackingka aan ziyaadiyo ilaa 3 booyad wixii affordable ah oo dad aqoon-yahan ay iga wareysteen oo liga xisaabiyey oo hufan ayaa wuxuu ahaa ilaa 3 booyad inay ku filnaan karto hadda lagdheera dhulka laga oomayay kadib wax communal tanks inaan dhisno oo affordable ayadana ah taangiyadan kuwa dhulka la gelinay ama barkada loo yaqaano inaan dhisno the first 3-4 months dadka ayaga ah 3 bil u hore mise 4 bil u hore inaan biyaha aniga aan ugu shubno meesha ayada maamulka anaga aan haysano kaliya waxaa loo baahan yahay waa booyada shidaalkeedii meesha ugu dheer biyaha kasoo dareysana waa 30 kilometer 35 kilometer shidaalkeedii iyo mileage-ka dareewalka maadaama booyada lagdheera ay leedahay tahay 4-5 tuulaba iyo sida hadday u kala baaxad weyn yihiin in booyadu ay ka dhexayso meel walba hal tanko barkad oo affordable aan awoodi karno aan ka dhisno dadkii 4-5 bil u hore biyihii meesha ay ka dhaansadaan jirgankii 60 shilin lagu gadanayay ama 50 shilin lagu gadanayay in lagu gato 5 shilin mise 10 shilin lacagtaas ayada ay save gareystaan baby loo sameeyo rag aqoon-yahan baan arrimahan kala tashtay oo fikirkan u gudbiyey waana arrin lagala shaqeeyay waaye dadkii lacagta yareeda u biirta 4 bir ka bacdi waxay awoodaan inay shidaalkii booyadoodii la bixi karaan wixii maintenance oo ay u baahato haddii tire la bedelayo hadduu dareewalkii lacagtiisa tahay inay ayaga tuulo walbo ay waxeeda la bixi karto arrinka arrin lagu wada qanco waaye arrin loo arkay dhiig joojin ay tahay arrin culeyska ka qaadayso reelagdheera arrin markuu qofkii dadka waa iska danyar xoolo dhaqataa la iska ahaa dadkii danyarta ahaa bedelkii uu ka fikiri lahaa jirganka biyaha maxaad ku gadan doontaa fikirkiisa ilmihii caanihii uu kusoo laabto wixii ilmaha caano loogu gadi lahaa ama kiilo sokor lagu gadan lahaa baa biyo lagu gadaa insha allahu tacaala arrinkan haddaan ku guuleysto waxaan doonayaa culeyskaas inaan ka qaado reelagdheera long term baaraandega weyn oon ku talagalsanahay anigooba county government iyo mataqaanaa doonaya inaan la kaashto insha allahu tacaala inaan ka shaqeeyo waxay ku xiran tahay horta calaqaadka aad la leedahay dowladda dowladda aniga wax walba oo mataqaanaa dowladda aan ka doonanahayo ama san laliga baahdo motions aa jira baarlamaanka la mariyo soo maha meel galgalka aday ku xiran tahay shuruuddayda koowaad wax walba oon dowlad mise qof laqoona shuruudda koowaad aniga biyaha waay dowlad hadal aan ka dhegeysan ma laha ilaa biyaha lagdheera lii xaliyaan leeyahay waa long term mithaal yar baan ku siinayaa mheshimiwa Sofia Abdi 150 kilometers ayay biyo gelisay I think 150 million Facebook page keedan ku arkay mar dhaxas last year oo lacagtan in loo hormariyay marka ayada ahayd national government project-ka qabatay waxaan aaminsanahay dhulka ijaaray inay annaga dalkan lagdheera ay ka baahi badan tahay runtii aan aaminsanahay marka lama dhihi karo national government biyo kuma shaqalo waxa good example la ah madam Sofia inta la shaqeysay inay arrinta qabteen waa arrin ii qorshaysan waxaa jiraan hay'ado la kaashan karo
waxaa jiraan safaarada proposals loo qoran karo siyaabo badan oo arrintaa looga hortegi karaa jirtaa keliya waxay u baahan tahay dadki mathalo oo u hadlo oo baahidii siday ahayd u tawiya ayaa loo baahan yahay waayahay waxaan filayaa qorshahaas inuu qorshe fiican oo dadka dhan ay la dhaceen u yahay aada umahadsan tahay arrinta security-ga ma maanaynaa mise amniga lagdheera bay ka duwan tahay marka loo security-ga constituency-yaasha kale mise deegaanada kale waxa ay ku taallaa meel boodha ama xad bay ku taallaa meelo kala duwanayna xad la leedahay intaan middaa xadka u imaanin waxaan rabaa inaan ku hormaro amniga guud ee lagdheera hadday noqoto waxaan ognahay inay jiraan dil dadka isdilo wax qabiilka iyo wax saas oo kale inay ka jirto Garissa County iyo sidoo kale qolada Antatera la yiraahdo oo ciidan ah oo dadkii la baxo inta badan dadka ka cawdo meel walba ka jirto North Eastern lagdheerana aan filayo dabcan inay ka jirto qodobadaas aan rabaa inaan ku hormaro kuwaasi maxaa kaaga qorshaysan adiga runtii waxa weeyaan arrimaha horta waa arrimo aada u foolxun musharaxa madaxweynaha hadda aan wada shaqeynayno William Samoei Ruto aad buu arrinta ayada uga hadlay waxaa kaloo ka hadlay the former majority leader Aadan Barre Ducaale ama Dogaasha Dhaaran markaan tagna arrinta way ka hadleen arrinta waxaa loo arkaa arrin khaldan inay tahay arrin dadka argagixisada ama lagu tuhmayo qaab kale oo looga hadli karo inay jirto qaab kale oo arrinta loo xakameyn karo inay jirto kalisa aysan ahayn qof intii liskala baxo la waayo ama wax noocaas oo kale ah arrinta ayada in badan baa la cambaareeyey waxaana loo arkay arrin mataqaanaa si ka fiican loo qaban kari laha inay tahay haddii aada lagdheera khaasatan i weydiisay waxaa tiri xuduudya ayaan leenahay Isiolo County xuduud baan la leenahay county ahaan markii la yihahdo Wajir County xuduud baan la leenahay isdil waa jira laakiin isdilkaas waa isdil qoyseed aan dhihi karna ama sane wax la mid ah daaqa ayaa keena sidaan ognahay aan ku sheegay lagdheera constituency waxay boqolkiiba 99 waa xoolo dhaqato xoolihii meel ay u daaq tagaan ayay doonayeen meelaha hadda ugu barwaaqo badan oo noo dhow oo weligeedna lasoo daaqi jiray waa dhankan Isiolo County walaalehen Booranta dhankooda waaye runtii arrinka ayada ah naf badan ayaa ku go'day xoolo badan ayaa la qaaday hadda weegan kali dhowr qof la dilay hanti badanna waa lagu dhacay labada dhinacba dib baa la isku geystay arrinta ayada ah waxaan u aragnaa arrin la xakameyn karo waa marka koowaad xoolihii daaqi inay Isiolo County aadaan kama maarmaan su-aashan ayaan mar walba intaan hadda wareegayga aan sameynayo mar walba waxaan weydiinaya war dhulkan Isiolo County ma ka maarantiin su-aasha jawaabta mar walba waxay ahayd maya waayo daaq looga maarmo qofka wuxuu xor u yahay Kenya meesha doonto inaad daaqi kartid ama aad degi kartid soo maha kastoo waxaan u aragnay arrinta ayada arrin aan hor loo xakameyn inay tahay haddii aan dib kuu celiyo aniga maxaa iga qorshaysan aada i su-aashay arrintaa waxaan u arkay maadaama dhaqaalihii lagdheera uu ku saladaysan yahay maanta xoolaha xoolihii haddii la waayo iskooladii baa la xiraaya caafimaadkii baa xirman waxoo dhan baa kala istaagaya maadaama dhaqaalihii lagdheera uu xoolihii ku saladaysan yahay aniga inaan xoolihii u taameeyo xoolaha daaqooda iyo afkooda aan la socdo meel walbay tagayaan aniga aan u sahmiyo waxaa ii qorshaysan hadda Isiolo County mithaal waa dad amniga jecel saan intaan hadda ka ognahay sidoo kale dhankan Garissa County amniga jecel yihiin laakiin kastoo waxaa dhacday calaqaadkii baa halaabay dadkii ka shaqeyn lahaa hawsha ma aysan gelin meeshan dad madax baa la rabay inay arrintan qabanqaabiyaan rag culumo oo fiican oo mataqaana amniga u taagan baan leenahay dad waxaa noo jooga labada dhinacba oo mataqaana peace chairmanaa joogaan waxaa joogaan retired chiefs dad oo arrintan qaban kara ayaa jira laakiin nasiib darro dadkii la rabay inuu dadka xakameeyo ama uu mataqaana hawl geliyo weli lama helin ani insha Allah waxay qorshaysan inaan labada baabuur xataa labada laan kursal aan gadno duqay 10 dhankan aan saarnay iyo 10 dhanka culumada ay ku jirto aqoonyahanka ku jiro patrol ay sameeyaan mushaar loo qoro markaad wax initiate gareyso program adiga aad la imaatid ayaa hadhow mataqaana dawladda aad ula tagi karta soo maha war sidan aan xal u arkay Isiolo County oo ka dhaadhiciyay Garissa County sidan aan isla qaadanay odayaashan way patrol gareynayaan waa peace chairmanadii
waa security retire mataqaan dadka security specialist oo deegaanka labada dhinacba leh. dadkaas tuulooyinkay tagayaan markii abaar dhacdo iyaga dadka ka hormaraya, islaax bay sameynayaan, peace preaching wax lay sameynayaan. waxaan u aragnaa arrin markaan aqoon-yahankii ama dadkii dhanka u firfircoona ama advisors dadka aniga ila talinaya xagga arrimaha security-ga ama xagga arrimaha border dispute-ka, arrin lagu wada qanco inay tahay, arrin waarta inay noqoto, arrin dhaqaalihii Lagdera Isiolo County-ba kor u qaadaysa inay tahay. waayahay waan fahmay, laakiin su-aal baa meesha soo gelaysa cabdiqani. su-aasha soo gelaysa waxay tahay adu waxaa tahay MP deegaan Lagdera baa tahay, Garissa County kama tihid. arrimaha boodhaagana waxay hoos imaanayaan dabcan dowladda county-ga. haddii hadda aada damacdo kale inaad la hadasho Isiolo waa county, inaad dowladdii Isiolo ee county-ga deegaankaas ee dowladda ismaamulkaas Isiolo inaad la hadasho noqon soo marka kaagama baahanayso inaad iskaashi samayso oo dowladda ah. haddii si iskaashigii uu dhici waayo kale ama gaabsi uu imaado, dabcan waxaan ognahay in siyaasadda wax kasta laga filan karo. haddii gaabsi uu imaado dhanka dowladdaada mise dhanka Isiolo oo kale tusaale, maxaa qorshahaaga ah? waa su-aal aada iyo aad u hufan, aada iyo aada u fiican. waanu ku faraxsanay su-aasha inay weydiisid. marka koowaad waxaad i su-aashay aniga waxa ii qorshaysan. aniga iskuma haleyn kara, calaqaad wuu jiraa, coordinations qasab waa in national government iyo county government in la wada shaqeeyo meesha ku jirtaa. arrimaha security-gana wax county government kali ay mataqaana hadda u xilsaaranta ma aha. waa arrin wadanka dhanba macnaha labada dowladba mataqaana wada shaqeynteeda ay u taalo. aniga markaan hadda halkan fadhiyo ama ayse soo sharxaye iskuma soo sharxin wixii aan qaban karo inaan sheegaan rabaa, waxa ii qorshaysan inaan sheegaan rabaa. inaan ku seexda ma aha. nin governor baa mataqaana hadhow aad calaqaad la yeelan doontaa. way ii fududaanaysaa inaan la yeesho hadday qarash noqoto. waxaan hadda kuu sheegay qarash bay u baahantay, laa guruusa lagada duqeyda mushaar la siiyo waxaan oo dhan ba soo maha. haddaad doonto waad weydiin karaa qarashka iyo qorshaheeda iyo qaabkan oola imaanayo. qarash bay u baahan tahay, waxay u baahan tahay calaqaad iyo fikir laisku daro. laakiin ani maxaa ii qorshaysan waay marka hore, ani inaan wax la imaado mogta I have to initiate. ani horta inaan wax bilaabo waay. markaa wax bilaawdid fikirkaaga, ani mar walba waxaan isku dayaa fikirkayga in la qaataa isku daya runtii anigoo dadka soo dhex dhigayo. aan kaa dhex galo adigoo mahadsan. qorshahaaga waa ii sharaxday. wuxuu ahaa in laangurso gadoo kale, duqey mishaar siisoo kale, peace preaching la sameeyo. waa qorshahaaga. su-aashaydu marka waxay ahayd dabcan iskaashiyaa u baahanaysaa oo county government ah. haddii gaabsi dhaco ama dowladda cilaaqaadka caalamiga uusan wanaagsaneyn ama relationshipkii, maxaa dhici kara? qorshaha kaas xigo muxuu yahay? horta runtii hadda county markaa dhahdo kale arrintan waa arrin wada affect garaysa oo county oo dhan saameysay. waa arrin laba county u dhexayso. laakiin iyadoo sidii tahay anigaa budigo u ah. hadda balambala hadda constituency oo kale xuduud way la leedahay dhankan Isiolo County, laakiin waa in yar soo ma fahmin. problemka wuuna wada saameeyaa oo waa problem saameynaya Garissa County. laakiin aniga inaan isku tashtaan rabo marka hore. حتى أمبيجا بلانبلا كسو قال إن كنت أشتاق ما كنتش حسابته ما أفكر كيه وأنا قف يسوي شرحانها صوابا نص شلست سوما سياسة نص شلست وحي أن كمان كر إن أنا عن كنت لقلان ربها لكن طبعا وحال لقى مارمين إن متقنا county government كي أرنتي أي متقنا يكون له هذا وهذه ويز هدي جابس كي ماذا هدي جابس كي ماذا وأنا سكوت أشتي وأنا program كي هذا أنكو شيء هاي كان وكو أنا قاسية لكن التلابة كواد وإن coordination سمينه وإن وذا شقين أن سمينه ولي بجاريزا كاونتي كلمة حتى إسيولا كاونتي مركا دو جابسي ما دوا كمار أنت هدي جابسي ما أنا كمار ما أنا مسناه واي أنت سكورتي أنت أنا كبحين إن سكورتي لما أكل قادني طبعا ومدة داقة يمدة بودركا أما حدكا ولقديرة ميل بيلاد هاي إسيولنا ميل بيلاد هاي وإن لسكو حد قد بأكلها وأيضا ماشي كجرتو iyaduna kamid ah oo arinta border security-ga soo galaysa mararka qaar markii laga hadlayo bal taasi iyadana iga waran qorshahaaga muxuu yahay horta arintan hadda marka Isiolo County aad ka hadashid laba siyaaba loo kala qaadaa mid waa midaan ku sheegay oo daaqa ah oo loo daaq tagay Isiolo County midda labaad xuduud waxaa jira u dhaxeeyo
Isiolo County iyo Garissa County. xuduudkaas wuxuu ahaa jidka toga Garamar. waxaa hadda nasiib darro noqotay wax new demarcation xuduud cusub hadda la sameeyey ma jiro. 40 sano iyo ka badan meeshii Garissa County chiefafkeeda ay chiefafka ahaayeen ayaa hadda waxaa dhacday Isiolo County inay dhahaan anaga iskala dhulki. ayagoo oo weliba miisaaniyad dawli isticmaalahayaan. waxaa nasiib darro noqotay chiefafkii dhankan in la dhaho uniform ma xiran kartaan markaa dhanka u gudubtaan oo official ya. waxaa isweydis la marka oo dadkii Lagdera qaasatan ama Garissa County dadkii affect garaysay chiefafka waa Lagdera. waxaa isweydis la dawladdan ma hadday dhalatay chiefafkan soo chiefaf lasoo gazette gareeyay oo dawladda ay chiefnimo meelaha qaaska oo laga qaaday hadda ay ku siisaso ma ahayn. waxaa isweydis la goormuu togi uu noqday xuduud adduunka xuduud jidba ah. hadda daa ka hadashid Mexico iyo USA meeshii Donald Trump uu dhahay derbi aan ka dhisay jid waay soo ma arkin. anyway in the world meel tog la dhahayo waan soo wayna anaga intaan soo raadinay tog la leeyahay xuduud buu noqonaya waayo toga biyaha meel kulma meel buu u leexiyay soo ma. arrinka ayada ah waxaan u aragnay arrin lagu dulmay ama loogu gafay shacabka Garissa County qaasatan Lagdera constituency. dawladdan arrinta ayada waan ku cambaareynayna tilaabo adag in laga qaadaan doonayna. arrintada maxkamad bay taallaa. haddii new demarcation uu jiri lahaa ama xuduud cusub oo hadda dib loo habeeyay ay ahaan lahayd yes waxbaan dhihi lahayn. laakiin dama garanayo doonta hadda dawladda ay la imaan doonto meel adiga aad chief gazetted ka dhigtay the same government the same country haddana la leeyahay chiefafki inta ma lahdin waa 12 chief ayay affect garaysay arrinta ayadeed. arrinta waxay u baahan tahay falanqeen fara badan. dawladdan wax weyn ba arrinta ayadana lagala jira dib weynna way keentay dhiig bay daadisay. waxaan filayna dawladda inay ahaato dawlad bara ah dawlad dadkii u dhaxayso laakiin hadda waxaan yara dareenay in ay xasho meesha ay ku jirto ayay dadka reer Lagdera dareemeen. haddii aad dib u fiiriso videoyaashayda ama intaan wareegay cawashada inta u badan arrintaas ahayd. afka aan ku hadlay hadda afkayga ma aha waa afka reer Lagdera ayaan ku hadlaya. waayahay marka afka reer Lagdera ku hadlaysaa marka Garissa County qusaysaa laakiin waxay si qaas u saameynaysaa Lagdera. yes adoo haddaad xilka ku guulaysato maadaama hadda dawladda waqtigeeda dhamaaday dawladda cusub lasoo dhisayo haddii ay xilka ku guulaysato arrintan ay sheegtay in meeshii chiefafka ay 40 sano ka hor ka ahaayeen hadda ay Isiolo leeyihiin anaga iskale adigu maxaad qorshe ku ah inaad ka bilowdo ma arrinta inkastoo maxkamad ay taalo dabcan dawladda lasoo dhisay sidee doonaysaa inaad oolahana qaado adoo arrintaasi dhinac ka galay. runtii arrinta horta maxkamad bay hadda taallaa. inkastoon aaminsannahay sidii aan rabnay ama Garissa County ay rabtay ama Lagdera constituency qaasatan la rabay ay usii dhaqan gelin degdegii aan ka rabnay iyo jawaabtii aan ka rabnay aad bay u daahday si ay ku dhacdaba. insha allahu tacaala arrinkan ani haddii aan ku guulaysto waa calaamad su-aalada koowaad oo ii taalataa ayada weeyaan inaan dawladda dib ugu noqdo war wixii sidee ku dhaceen maxaa sababay arrinta inaan culeyska iyo xoogga saara ayaan doonaya insha allahu tacaala. Cabdulqani Zaytuun waa mahadsan tahay. dabcan qaybihii u dambeeyay barnaamijkan soo gaarnay weli arrimahaana ku jirnaa arrinta waxbarashada inuu galno adoo soo koobaya dabcan markan dhanka waxbarashada bal laba qayb aan u kala qaadaynaa. dhan aanu qaadno dhanka dhismayaasha iskoolada iyo goobaha waxbarashada iyo dhanka kale oo ah in lacagii laga bixiyo ardayda oo dadka xoolo dhaqatada inta badan badan dad masaakiin oo aan lacagtooda ka bixin karin inkastoo ay jiraan lacag loogu talagalay oo CDF ah inta badanna dadka ay si xaq u helin cawashada dadka oo kamid ah in la musuqmaasuqo siyaasad la dhexgeliyo oo kale. laba qodob aan u kala qaadaynaa. qodobkan dhismayaasha iskoolada kale aan ku horumarno way ku yaryihiin dabcan Lagdera maxaa qorshe ku ah inaad dhankan horumarinta waxbarashada dhanka dhismaha iskoolada maxaa qorshe kaaga? runtii Maxamed waxa weeyaan tacliinta horta aad bay u hooseysaa intaan ognahay. isbedelna ma helno oo mataqaana uma aragno dad hadda arrinta u taagan ama u firfircoon ma aragno. waxaa iga qorsheysan kadib markii aan
consultation fara badan aan sameeyey dad aqoon-yahan aan la tashtay dad veterans ah oo veterans oo horaan macnaha dadka educationka kasoo shaqeeyey oo weliba khaasatan reer lagdheera hal aan oola fariistay waxaa iisoo baxday intaama dowlad horta aan la gaarin annaga maamulkeena hoose inuu wax ka khaldan yahay hadday tahay board iskuullada boards ay leeyihiin systemkaas baahida iskuulka waxaa la doonaya dadka inuu soo gudbiyo horta inaa systemka wax naga khaldan yahay insha allahu tacaala arrintaasna inaa wax weyn ka qabto ilaa aniga meel walba ma taagnaan karo dad aan hufan oo arrintii khibrad u lah oo marka koowaad markaad wax cudur daawadiis waxaa la helaa marka cudurka horta aad ogaato soo maha poor performanceka waxaa keenahayaa waxyaaba fara badan dhismo keli ma aha intii dhisneed horta aan ka hadalno dhismo wax ziyaadsiga ha dambeeyo kuwii dhisnaa ayaa waxay tahay maanta ayaa performancekooda noocaas iska yahay marka waxaan ka bilaabi rabnaa insha allahu tacaala school boardskan ka bilaabi rabnaa meel walbo waxaana iga qorshaysan isbedel weyn inaan meesha ka dhalino kadib baahideena aan soo gulbino tilaabada markaasa la qaadaya aniga ma rabi geedka kor inaan kasoo fulo waa bottom up approach waay wixii ani hoosaan ka bilaaba kor aan u wada insha allah geedkina hoos ka fuushaa rabtaa aada umahadsan tahay dhanka kale marka dhanka lacagaha CDF oo laga bixinay dabcan aad baa looga hawdaa dad badan baa ka hawdaa taasina maxaa qorshe ka adoo igu darayo noodista inta badan macallimiinta ka soo carara arrimo amni inkastoo amniga ay aada ugu badnayn macallimiintu waxay u cararayaan amniga kale aan ahayn hadda township oo kale amni xumo kama jirto dadka badan oo falanqeeya siyaasadda meeshan aan keenin maamul xumay sheegeen adna hadda afka ku dhufatay carabka ku dhufatay taasna maxaa kaaga qorshaa igu bilaab middan CDF runtii horta tan aad leedahay northeastern aniga horta focuskayga inta badan waa meeshan iyo gobolka meeshan aan ka taaganahay northeastern waa waqti dhibabka ka jiro in macallimiintii security la-aan daraadeed ay usoo cararaan waxaa kasii weyn ood sheegtay oo aad og tahayba maadaama dad badan aad halkan ku wareysatay waxaa kamid ah maamul xumada ka jirta iskooladii xagga tacliinta taa iyada waa sidaan kuu sheegay waa aniga focuskayga tan lagdheera ayuu ahaan doona insha allahu tacaala tanna waxaa waaye dad advisors oo fiican baan leeyahay dhalinyarana ma aha waa rag asaan kuu sheegay dad dhalinyaro ma aha aniga dadka aan doonaya tacliinta lagdheera inuu lagala shaqeeyo waa dad mataqaanaa arrintan khibrad u lah waa duqeydii lagdheera asal ahaan u dhalatay kasoo waxbartay ku ritaayagareeyeen dadkaan la tashanaya dadkaasoo kale waaye kadib fikirka ay iisoo jeediyaan ama aan ku wada arrin baan ku tilaabo qaadayna insha allahu tacaala haddii ay weydiisay cadaalad darrada ka jirta masana fiiska ama basariga ilmaha laga bixiyo waa waxyaabaha u weyn oo hadda dadka ay ka cawanhayaan waxaa nasiib darro ah iyadoo ilmihii ay mataqaanaa rafaadka aragtay iyo dhibka aragtay canug hadda meeshan ka akrisanaya canug ka akrisanaya lagdheera aad iyo aad bay u kala tahay ilmaha xagga waxaa weeyaan mudnaan gaar in la siiyay ahaan lahayd sababtoy tahay waa ilma wixii xoolihii yaraa loosoo iibiye loosoo gaday oo fiista looga bixiyey reerkii wax yaray u baahnaayeen ama raashin ay ku gadan lahaayeen ee intay iska cuna qabateen ilmihii fiista looga bixiyey ilmahaasoo kale markay secondary iyo soo gaaraan in garabka la qabta ayay u baahan yihiin in culeyskii waalidkii laga qaaday u baahan yihiin marka waxay ila tahay arrinka haddii aad iweydiisay cadaalad darro weyn ayaa ka jirtaa dad shaksi ayaa lagu mataqaanaa xaqliyaa dad shaksi ayaa lagu naasnuujiyaa insha allahu tacaala arrinkan hadda aan ku guuleysto waxaa ii qorshaysan qolo walba haddii ay degaan ahaan wax loo qeybsado haddii ay qoys ahaan wax loo qeybsado si alla sidii markaa ayada dadkii ay isku qaabili karaan inaan wixii soo dhex dhigo baahidii markaa siday u kala daranta iyo ilmihii fiistooda aan u qaabilin insha allahu tacaala anigoona qoys iyo nin jeclaysi aana fiirinayn waqtigaa inahaya cabdiqani labadii su-aal ee ugu dambeeya aan ku weydiinayo ee barnaamijka maanta aada martidii inoogu tahay tan waxay qusaysaa weli arrimahan aynu ka hadlayno oo qorshayaashaada ah dhanka employmentka ama shaqada inta badan arday badan oo wax barataa jira iskooladii bogay secondary bogay qaar jaamacadii kasoo baxay iska joogaa jira marka qorshayaal kala duwan baa jira oo lagu shaqaaleysiiyo dabcan saa aniga dad badan ka maqlay marka haddaan doonaya inaan kaa maqlo dhalinyarada reer lagdheera ee iskoolada kasoo baxay qaarkooda wax soo bartay maxaa u haysaa oo dhanka shaqada ah maadaama ah halkaas xilka doonaysa haddii aad ku guuleyso
runtii maxamed waa arrimaha aad iyo aad aan oola fikiro waa sidaan kuu sheegay ilmaha waxbarashadooda si dhib badan ayaa wax lagu soo baraa wax laga baahan yahay ayaa lagu soo waxbaray waxaa nasiib darro ah maanta dadkii shaqo lama wada geyn karo laakiin waxaa nasiib darre boqolkiiba 95 ayaa laga dheera hadda mataqaana lagu rate gareeyay boqolkiiba 95 dhalinyaradii iskoolada kasoo baxa ama jaamacadaha kasoo baxa inay shaqo la-aan yihiin taas waxaan u arkaa xagga madaxdii lasoo doortay inay ka gaabiyeen inuuba jirin wax program oo dad shaqo loogu raadiy insha allahu tacala arrinkan haddii aan ku guuleysto waxaan doonayaa inaan xataa dhalinyarada aan mataqaana aan gashto meel aan ku qorto sidai u kala daynay aan u foofo wax walbo igu qaadatabo dal iyo dibadba insha allahu tacala inaan shaqo kala raadiy ayaan doonaya agencies kataa dibadda dadka u diro waddanka gudihiisa inaan kala waxaa arrintaa mataqaana aan usoo madaxweynaha ninkaan u dooranhayn hadda William Samoei Ruto markii igu dambeysay waxyaabihii aan ballan qaaday ayay ka mid ahayd inaan ninkaas aan geeyo Mudogashe Soomaali garan Mudogashe William Samoei Ruto arrimahan biyaha wuu ballan qaaday wuxuu yiri waxay nagu qaadataba hataa dhowr iyo 20 kilomitir ah biyo waan keenayna Mudogashe iyo nawaaxigeeda arrinta tacliinta aad buu uga hadlay kaliya waxaa wixii aniga asaga aan ku soo ballan ilaa aan xisbiga iskama gelin waxyaabihii aan Ruto kula soo ballamay ayaa waxay ahayd baahida lagdheera in wax lagala qabto tiina afkiisa ay dadka ka maqleen haddii xataa xaggayga ay ka socon weydo in arrin mataqaana aan kusoo halgamay ay tahay insha allahu tacaala ma xumo meelo galgalkeygana ma xumo insha allahu tacaala waxaan aaminsanahay arrintaa wax weyn inaan ka bedeli doono insha allah su-aalaan ku weydiin rabaad carabka ku dhufatay laakiin haddaad si fiican inoogu falanqeynaysaa xisbigaaga waa UDA waa xisbigii madaxweyne ku-xigeenka dad badana waxay isweydiin karaan xisbigaa muxuu u galay bal ani haddii aan ku weydiiyaba cabdiqani zaytuun sababaha aad UDA ugu biirtay adoo ODM arkayo Jubilee arkayo xisbiye kale arkayo maxay tahay runtii horta waxaa weeyaan xisbiga markaan galayay iskama gelin xisbi la-aanna ma ahayn alxamdulilah marka de xisbiyada horta dadka waxay ku qaataan ratingka dowladda soo gudbisa independent bodies oo dadka waxaa jiran kusoo qiimeynayaan dadka tartamaya ayaa meesha lagu soo qiimeeya qiimeyntii socotay ilaa haddana socota ayaa mar walba waxay tusaysaa aniga inaan u sarreeyo meesha lagdheera tii ayaa waxay sababtay in xisbiyo badan ay ila soo xiriiraan xisbiyo badan ani window shopping waxa lahaan samey programkaygan watay marba haddii aan arka badeecadayda inay qaali tahay ana tayda waan yara qaaliyey tii reelagdheerana waan qaaliyey qof uma aheen mataqaanaa xisbi desperate u ah laakiin waxaan desperate u ahaa oon aada ugu baahnaa xisbi aan calaqaad la yeelan karo iina sheegi karo baahida lagdheera kana hadli karo ballanna iga qaadi karo sababii xisbiyo badan oo la kulmaa jirtay hadda Jubilee baad afka ku dhufatay ODM baa afka ku dhufatay ODM waa xisbi koowaad oo mataqaana hadalna dhex maray laakiin waxay igu adkaatay xisbi ninka u weyn baa maamulka haysta Soomaa inaan ninkii u weynaa oo maamulka haysta ODM inaan la kulmaa igu adkaatay dhowr irgaan dirsaday dadkii ila soo xiriiray oo marka ay ODM rabeen inaan galo kulay arrimo shakhsi bay ka wateen baa laga yaabaa laakiin waxay igu adkaatay ninkii xisbiga hogaaminaya inaan la kulmo sida awgeed waan mataqaana aan ka baxay waxaan la kulmay Jubilee oo ayadana afkaad ku dhufatay inkastoo xisbiye kale oo fara badan aan la kulmay yaryar Jubilee waan fariisanay dad madaxda Jubilee ka mid baan fariisanay laakiin waxaan rabay aniga ninka party leader inaan la kulmo madaxweynaheena ayuu ahaa way adkaatay arrinta ayada ahayd marka waxaan u arkaa dadkan kale sheekay inay iska tahay baahida lagdheerana mataqaana ani meel aan la cuskadaan rabay waxaan isqaabilnay William Samoei Ruto UDA party waa ninka party iskale waa ninka funding kale waa ninka samaystay waa ninka hogaamiyaha 3 jeer baan kulanay baahida lagdheera baan u sheegnay waan ka hadalnay xataa diintaan ka hadalnay kobcinta diinta lafteedaan ka hadalnay waxyaabo badan buu iga ballan qaaday kadib waxaan geeyay reelagdheera ayaan meeshii geeyay reelagdheera intii oo kale u sheegay war ninkan baan xisbigan baan geli rabaa reelagdheera dadka aqoonyahanka culumadii baan meeshii geeyay waad aragtaa laga yaabo social media intii aan uu ii soo sheego dadkii u sheegay kadib waxaan ku ballanay Mudogashe inaan tagno dadka xagga joogan oo u sheego Mudogashena waan geeyay maalin hore waxaa dhacday prime minister inuu xagga tagay waxaa nasiib darro ah dadkii intuulooyinka laga soo arooriyay ilaa banaanay ilaa meel walba dadkii intii xataa looriyaal lagu soo guray oo Mudogashe la iskugu keenay oo dadkii habeenkii meesha ay ku rafaadeen oo la bariyay maalintii oo dhan qorraxda ay taagnaayeen haddee ninkii dhannaa oo madaxweynaha Azimio u wadatay daqiiqadii u dambeysay la dhehma imaanayo niyad jab weyn bay dadka u keentay waxayse aad ugu farxeen William Samoei Ruto
iyo ballantii cabdiqani zaytuun oo kasoo baxay inay ila doortaan reer lagdheera diyaar bay u yihiin waayahay cabdiqani zaytuun aada umahadsan tahay su-aasha ugu dambeyso waraysigeena maanta fursadaan rabaa inaan ku siiyo inaad la hasho dadka reer lagdheera dadka ku taageera iyo dadka kasoo jeeda guud ahaan Garissa County baaqaaga ku aadan codsigaaga bal inaad hadashid. runtii waad ku mahadsan tahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin reer lagdheera waxaan baaq u dirahayaa dadka lagdheera ku nool tafadal inaan qaabka aan wax u doorano aan wax ka bedelno sida hadda aad ku wadaan nin jeclaysi inaan waxba lagu dooran keliya baahidiina aad eegtaan baahida na haysata maanta waad ogtihiin biyo la-aanta na haysato colaada na haysata tacliintii caafimaadkii meel walba oo mataqaana dhibab naga haystaan insha allahu tacaala blueprintka iyo qorsheyga waa mid ka aragteen waa mid aad ku qanacdeen waxaan idinka waaninhayaa baahidiina idinka ayay idin quseysaa qof kale ma quseyso qof shaksi mise nin jeclaysi mise qabiil iyo qoys siyaasa waxba lagu dooranin sida hadda aan wax ku wadno aan wax ku wadno insha allahu tacaala si hufan ayaan idinku adeegaya aniga nin loo hadla ma ihi reer lagdheera aniga isku hadladaa nin loo hadla ma ihi nin la garab wadana ma ihi keliya waxaa waaye dad aqoon-yahan odayaal sharaf leh oo ila tali waan wataa laakiin ani nin loo hadlo oo la garab qowmiya aniga idiin imaan horaanna idiin imaaday codkayga idin weydiistay insha allahu tacaala aan wada soconno sida fiican hadda aan wax ku wadaana ku wada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu cabdulqani ibraahim zaytuun aadaa umahadsan tahay waqtiga aadna siisay iyo sida fiican aad barnaamijka nagala soo qayb gashay intaasuu ku dhan yahay barnaamijkeena maanta intaan barnaamijkan kiisa kulmi doono nabadgelyo